السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنامج كيني مان بله كل نولانشها أما individualism ومد كمدا رقمدا سببا فرحة لعنتا وروركا إيه والبهارك حنونك depression كو كانو إيه ينقفك نولانشا وكدعو أو نعو أما أو لفتي سبدلو وأنا مد كمدا شنت قضب بروف إيميل دوخين وكوشاقي بوكيشي سوسايد إسديلكا وأنا قضب كيسا دحاد ka mid ah shanta qodob oo aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena maanta. Emil Durkheim markii ay isku qaban weyday barwaaqada ay reer galbeedku gaadheen kacaankii warshadaha ka bacdi, barwaaqadaas oo ah mid dhaqaale, mid xorriyadeed iyo mid xagga tiknoolajiyadda iyo sayniska ah, iyo dhinaca kale oo ah natiijada ka soo baxday barwaaqadaas oo noqotay dadkii oo bilaabay farxad la'aan ama farxad xumo, warwariyo walbahaar, xanuuno xagga maanka ah la darsay, saa daraaddeedna uu bilaabay isdil noociisa aan horey loo arag oo xawli aad u sarreeya ku socda. Emil Durkheim waxa uu ogaaday in sababtu ay tahay habdhaqanka keli-noolaanshaha ama individualism-ka oo ah mid ka mid ah shanta arrimood ee uu ku qoray buuggiisa. Waxa uu sheegay nidaamka dhaqan-dhaqaale ee capitalism in uu dadkii ka kaxeeyay nidaamkii bulsho oo uu kaxeeyay nidaamka keli-noolaanshaha, taasina ay tahay mid ka mid ah sababaha keena farxad darrada, taasi oo dadka gaadhsiisa inay naftooda dilaan. Kacaankii warshadaha ka hor, dadka reer Yurub waxay ahaayeen kuwo ku nool habdhaqan wadareed. Qofku waxa uu ahaa mid ka tirsan qabiil ama dabaqado bulsho, qof beeraley ah ama roodhida duba ama wadaad ah iyo wixii la mid ah. Guurka oo ah waxyaabaha looga cabir qaato daraasaynta dhaqamada bulshada, ninka reer Yurub waxa uu guursan jiray bilaa shukaansi ama haasaawe, guur aan kharash lahayn, caqabaduhuna ku yihiin. Tusaale ahaan, waxaa dhaqan ahayd in ninku ku sii xisaabtamo in adeertii ama in abtidiisa saddexaad, taasoo iman jirtay in la isku dhiso iyaga oo aan wada sheekaysan ama haasaawin. Hase ahaatee, kacaankii warshadaha kadib, markii ay reer galbeedka ama reer Yurub gaadhay horumarka dhaqaale ee ballaaran, dadkana la siiyey xorriyadda xad-dhaafka ah, waxa bilaabantay dhaqan cusub oo xoojinaya in qofku uu helo awood dheeraad ah oo uu wax kasta ku doorto, sida shaqada uu qabanayo, diinta uu qaadanayo, iyo qofka uu guursanayo. saa daraaddeedna qofku waxa uu yeeshay awood badan. Taasi waxay keentay in qofku wixii guul ah ee uu gaadhay isagu uu u dabaaldego, wixii guul darro ah, fashil iyo masiibo ku dhacdana uu isagu kor ka saarto. Hase ahaatee, arrinka ugu adag ayaa wuxuu noqday in qofka aadamihii uu u dulqaato cawaaqibka iyo xanuunka nafsiga ah ee ka soo gaadha guuldarrooyinka isaga ku dhacaya ee kelida ku ah. Waxaana taa u sii nuglaysay in uu qofku ka dukay wixii la odhan jiray diin ee dhibaatada ka yarayn lahaa.